سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن عافيمات تامة ينول وناكسنا يا ندين رجينا يا مقال كان كوما وحين كسو قادرينا هوينك وكوبدا هاي هرمون كاللي هاي تستوستيرون هرمون أما هاي تستوستيرون كا هرمون كاسو كوبدا هاي علامتها لغا أركو يا استامها تلماما يينو هرمون كاسو كوبدا هاي هوينيدا ayaynu ku tilmaami doonaa ama aynu ku sheegi doonaa muuqaalkan kooban. Marka koobaad waxa lagu arkaa haweeneyda inay hoos u dhaco dareenkeeda dumarnimada, rabitaanka ay u baahan tahay ninkeeda haddii haweeneyda la qabo ama dareenka dumarnimada ay helayso ama hamadeedu inay hoos u dhacdo ayaa la arkaa. Calaamadaha kale iyagana lagu arko haweeneydu xilliga uu ku badan yahay hormoonkan waxa kamida in haweeneyda ay murquhu waaweynaadaan ama maskalka murqaheedu inay ballaadhaan oo seeskii haweenku ay lahaayeen ay ka waaweynaadaan, inay garbuhu ay waaweynaadaan iyo codkeedu inuu isbedelo ayaa lagu arkaa. Calaamadaha lagu arki karo waxa kamida haweeneyda inay ka khalkhasho caadadu ama haweeneydu xilligii ay heli jireen inuu dib uga dhaco oo waliba ay muddo badan u ka daaho ayaa la arkaa haddii hormoonkan haweeneyda uu ku badan yahay. waxa lagu arkaa in haweeneydu ay muddo dhalmada ay joojiso ama dhalmada qudheedu inay kaga yimaado. qaar ka mid ah dhakhaatiirtu waxay ku tagayaan inay haweeneydu ay dhalmada ku dayn karto hormoonkan haddii uu saayid u sii bato, in haweeneydu dhalmada ay joojin karto ama sida ay ku geli karto xaaladda inaanay haweeneydaasi aanay dhalin. hormoonkan oo haweeneyda ku bata waxa la arkaa in haweeneydu madax xanuun ay dareento, inay niyad jab ay dareento, inay kulayl saayid ay dareento, inay sidoo kale cadho badan ay dareento ayaa lagu arkaa. calaamadahaasi waa calaamadaha tilmaamaya in haweeneyda hormoonkan uu ku badan yahay. haddaba haddii hormoonkan haweeneyda uu ku bato maxay nala gudboon laakiin haweeneydu maxay samayn kartaa? haweeneydu marka koowaad waa inay booqataa goob caafimaad si rasmi ah loo ogaado hormoonka levelkiisu halka uu marayo iyo inuu ku badan yahay. sidoo kale calaamadahan mararka qaar haweeneyda waxay lagu arki karaa early period ama early stage oo ku jirta la arki karaa. waxaanu aad u wanaagsan yahay hormoonku xilliga uu badanayo in haweeneydu hadday calaamadahan qayb ka mid ah ay dareento si loo xakameeyo oo loo kantaroolo oo hormoonada khalkhalka ku yimi loo saxo inay xilli hore goob caafimaad ay booqato ayaa muhiim ah. qodobka kale ee aynu ku xallin karno waxa kamid ah quite amount of protein, in haweeneydu ay qaadato protein ku filan isla markaana cuntooyinka proteinka laga helo ay badsato, sida inay marka ay qaadato hilbaha kala duwan, ukunta iyo kuwa proteinka laga helo haweeneydu inay si joogto ah u qaadato, iyo inay exercise-ka si regularly oo constantly inay u samayso joogta ayaa iyaduna ay tahay waxyaabaha aynu ku yarayn karno inagoo guriga joogna. dambayn haweeneydu inay si joogta u cabto green tea ama shaaha cagaaran inay isticmaasho, kuwaasi waa kuwa ka yarayn kara in haweeneydu ay hormoonkaasi ay dejin karto. sidoo kale macaanka faraha badan ama consumptionka ay ku samaynayso inay sonkor badan isticmaashana inay iska yarayso. intaas ayaa caawinaysa fariinta koobaad goob caafimaad inay tagto oo la eego hormoonada haddii calaamadahan isku aragta ayaynu kula talinaynaa xilli hore inay tagto. intaasaynu ku soo ururinaynaa ee la sii wadaaga bulshadeena kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.